shalay abbaara labadii subaxnimo ayay ahayd markii koox hubaysan ay agagarka garoonka diyaaradaha Gaalkacyo ka afduubteen sida la sheegay Farxiyo Cali Maxamed oo waalidkeed ay sheegeen inay raaciyeen ari. Farxiyo oo ah gabadha la afduubtay oo la hadashay warbaahinta waxa ay sheegtay in rag indhaha soo xirtay ay xoog ku saareen baabuur nooca raaxada ah isla markaana ay geeyeen meel aysan garanayn kadibna ay ku wargeliyeen in qayb ka mid ah xubnaha ugu muhiimsan jirkeeda ay kala bixi doonaan. Waxay sacadeysay in muddo kadib ay soo fasaxeen markii ay ogaadeen sida ay sheegtay in kaliyaheeda ay jiran yihiin. nimankaas markii jug xoog la igu rideen ka bacdi qalba la igay waa la baaray labada kaliyood ba computer la iga saaray madaxa waxa la dhahay kaliya ka jiran tahay wadnaha laga bixiyay iyo kalida kale waa ka bixinayna computer kale la igu celiyay waxa la yiri ma laga bixinayo hala bixiyo banaanka loo bixiyo waa ay garaaceen nimankaas markay soo garaaceen ani banaanka la ii soo bixiyay calaamad ba wajiga la iga saaray dhar kale nooc kale la ii geliyay waxa la yiri waa la qalay midda waqtigaada soo dhamaaday kabacdi hooyada wacba la yiri waa lagu qalay hooyan soo waxaan risaas bay jirtay aniga marka waa la dilay hadda waxaan rabaa in wax la iga qabto dilkaas. Faadumo Xarawo Shariif oo ah hooyada dhashay gabadhan waxay sheegtay in gabadheeda ay kula soo hadashay taleefan ayna u sheegtay inay haystaan koox hubaysan ayna doonayaan inay kala baxaan kaliyaha. Waxay sheegtay hooyadan in xilligan ay ku faraxsan tahay in gabadheeda ay dib u hesho. aniga saaka 2 saac gabadh yar waxa u dhiibtay waxa yarana meeshaas koonaha airportka meeshiisa nooge gabadhiiba maraan ay nus saac iga sii maqantay soo wacdo waxay tiri hooyay waa la hayaa hooyada la hadal baa la yiri maanta adduunka kuugu dambaysay marka anigu aad baan u qalqalay waxa hadda sheegahayaana waa iska qalqaliso aad baan u naxay maanta oo dhan baan goobaynay caraan gacan galnay gabadhii waa meel baa la igeeyay tiri halkaas hadda anigu maanta oo dhan baan goobay hadda mar dambe Ilaahay waa ii soo badbaashay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ay dhareeyay. Inkastoo tacadiyada haweenka lagula kaco ay Gaalkacyo dhowr jeer oo hore ku soo laalaabteen haddana arrintan loo geystay haweenaydan ayaa ah mid ku cusub gobolka Mudug waxaana walwal ka muujiyay bulshada ku nool Gaalkacyo gaar ahaan haweenka. Jibriil Cismaan Cilmi